waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucan dhowr jeer ili waan kala hadli doonaa oo ah ishraaq istikfaarta. waxaan mooday in aan baabuur saaranahay in my life inaan baabuur saaranahay oo aan xowli ku socdo, aanan register garaynaynin all the good stuff. jidkaas toosan oo dheer oo horteeda u socdaa aan waxbaan beegsanayaa, wuxuu yahay allahu aclam, oo because bulshadii aad u baahnaatay kaas. markaa hadmada channelka dhinaca ana u waday oo ahaa on top of that waanidaas miyaan ka baqooyaa ma aqaani. I had a panic attack hadda koor ugu dhacay, anxiety waa la soo dhiilgareeyay so many years all of that, laakiinse kan wax kale bay ahayd. markaan ashahaatay ma baqin calashaan oo dee waxaan ka wadaa I thought this is it. ilaahi subxaana watacaala khaatama khayr igu subiyanaa ka bari. waan ashahaatay 2024 bishii afaraad, waa maalin taariikh ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين قبل عمرك إن بدن وأنا صغر فديني سنة بدن ودورة 3 سنوات كسي ساعتها أمانينايا لابد كوني إيو لابي لا تنكي كسي 3 سنة إيو حوغا وابيل أنت أنا صغر فدينا أف صومالي أنكو هاللاي kahor waxaan ku hadlay waxyaabo Ingiriis ah channelka markaan furayna sida mar walba dhaho ama ciwaankiisa ku qoran, waxaan u furay inaan kula wadaago isxusuusimo marka ugu horeysa aniga nafteeda ugu dan lahaa oo isku xusuusin Ilaahi subxaana watacaala in anaga isbedelka nafteena ka bilowno, in maxaan ku raday waxyaabahaasna waxaa of course meelkan marka keena aan jeclaaday, laakiinse waxaan maqlay weeyaan, waxaan meelka akhriyay weeyaan, waxaan jeclahay inaan nafteeda kusoo ziyaadiyo isbedel ah weeyaan, because dee laga yaabo inaan subconsciously faa'iidadeeda intaan u tabiqay aan u arkay, laakiin wax mostly waxaa la dhihi karaa wax aan meel kale kasoo naqliyay ama wax aan isdhahay as you go isla samaysiin ama isla baratiin ama isku so basically sidii video diary oo kale ama wax saas oo kale ah. adiga wax one way or the other waxaan isdhahay wax faa'iido lehna sheeg, at the same time adigana wax ku baro saasay iga ahayd marka hore. So journey markaan bilaabayo oo social media saas baa ahayd, because ana waxaan jeclaan jiray in I don't know for some reason wax soo gudbiyo xataa marka waxbarashadan kala dooranaya ama rabay inaan wax barto, wixii ugu horeeyay oo iskuulka jaamacadda ugu horeysa bilaabay waxay ahayd journalism. waxaan leeyahay wax soo gudbiyo, wax xaqiiqada raadi, wax noocaas oo kale ah. So waxaan isiri wixii oo dee social media wixii oo laga dhigo waxa adiga gacantaada ku haysid oo adiga soo nashin kartid oo dee faafintii ay fududaatay, soo ka faa'iideeyaan isnahay. Anyway marka hore dhacaas iska dheero kasoo gudub, marka taas way iska yara lug gaabisay. saamooday ma is ugu fududaanin howlo adduun hooyanimo ma nolosheeda caadiga ah waxaas oo dhan baa iga ii suurtagelin waayey intii saan jeclaan lahaa inaan u sameeyo. marka waxaa dhacday oo kale as I was anigoo soo gudbinayo marka oo soo gudbinteedii wado oo anoo marka waxaan ka wada channelkaygi waxyaabo yar soo gelgelinayo badnaan Ingiriis ah, xag Soomaali ah, channel kale oo caruurta tarbiyadeeda ku saabsan samee xagga ka dhaco anoo hawsha guda jiro ayaa at the same time waxaan ku guda jiray barashada ama fahanka idraabkan amaba shakhsiyadan xanuunkan loo yaqaano narcissism iyo waxyaabaha dhibaatooyinka dadka u keeno iyo dadka leh waxa inaan fahmo, because been inay sheegayaan dhibaato badan baa iga soo gaartay dad noloshii ku jiro oo dabeecadahaas ama sifooyinkaas
u saaxiib ah ama lagu tilmaami karo. So wixii baan dhibaatada badan iga soo gaartay anoo baranaysaan ula tacaalo ama anoo baranaysaan uga baxo waana ka faa'iiday wax badan iyo waxaan isaan uga faa'iiday ayaan isiri dadka kula wadaag waa wax fiican oo dadka lala wadaago, khaasatan markaan arkay dad family ku jiro ama asxaabteeda ku jiro iyagana mashaakilkaas kula mid ah ka tabanayo. So kiibaa xoogaa fiican qaatay oo because bulshadii aad ugu baahnaatay kaas markaa had mudda channelka dhinaca ani u waday oo ahaa xusuusimo diini ah, xusuusimo ilaahi ah, xusuusimo tatawur nafsi ah, xusuusimo maxaan ku dhahday naf tababarid ah, waxyaabo noocaas oo kale ah oo anigana aan ku faa'iiday dadkan uga faa'iiday ahaa jidkeedii wuu ka leexday, anigana aan ku faa'iiday dadkan uga faa'iiday adigana asla same time kusii baro oo kusii faa'iid jidkii ahaa wuu ka leexday channelka marka because marka aniga wax u faa'iiday nafteeda u faa'iideynayo waxaan inta badan waxaa dhacda waxa ani ka faa'iidooyo misle waad u baahan tahay markaas ayaa dadkan usoo gudbiyaa because waan ogahay qof aniga qof ila mid ah inuu halka out there joogo because waxa aniga u baahanahay khasab adigana u baahan tahay because labadeena qofka bini'aadam ah nafteeda hormarnayso. Waayo waxaa dhacda marar badan wixii aan isdhahay aan ka faa'iiday aan ku dhaqmay aan ku dadaalay aan sameeyey dhowr bilood kadib waxaa dhacday inaan iloobo ama aan ku dhaqmin. Haddaba marka video aan leeyahay aan daawado ama mowqif uu isoo xasuusiyo aan ku dhaqmo saas ogeed in la isxusuusiyo wadakir fa inna dikra tanfacu lmu'miniin barin ilaah subxaana watacaala ayaa yiriba in la isxusuusino waayo xusuusinta mu'miniinta ayaa anfacda. saasaa marka waxay keentay in aan marka mawduucii ahaa waan ka leexday xoogaa mawduucii dadka sunta ah iyo dhirir waa aniga ku raagay xoogaa waa aniga marka kasoo noqday haddana oo is-iri bal oo aniga kasoo noqday waxaana waxa aan ugu talagalaya waxa aan isku diyaarinaya waxa ma aha saa channelka ka dareemi kartiin waxa isleedaysaa maxay mar dhinac soo boodaysaa mar dhinac soo boodaysaa way fiican tahay qofka inuu hal jiha haysto laakiin se qadar loo ma sha faal waxay ku socdaan oo ilaahay iraadadiisa ilaahay rabitaankiisa alxamdulillahi rabbil caalamiin mawduuc walba oo ka hadlo dadka waxaad mudaawan wari adar faa'iideyn ugu jirto alxamdulillahi rabbil caalamiin kastoona joogtaynteedii ay xun tahay taasna dee ilaahay ayaa qadaray. allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. maanta marka maxaan rabaa inaan ka hadlo mawduucan dhowr jeer iri waan kala hadli doonaa oo ah ishraaq istikfaarta maxay ka faa'iiday maaha waxaan ka faa'iiday afka kow iyo laba waan ku dhuftay xaggee ka timid qofkii xoogaa yara fikiraayo oo jecel inay wax dabaarbaaraan iyo haddaad isleeda baar waa laga yaabaa inay heshid videoga aan kaga hadlayo aan leeyahay 11 faa'iido oo istikfaarta leedahay ayaa halkan aan kusoo link garay mar walba waan amaan kusoo link garay videogaas aan dhahayo ayaa la dhihi karaa bilowgii waayo caadi ahaan ani alxamdulillahi rabbil caalamiin walfadlu lillahi rabbil caalamiin waxa aniga caqligaygii iyo fariidnimadeydii iyo dadaalkayga ku keensaday midna ma haba yaraatee at all waa wax ilaahay qaadirka ahaa dhinaciisa ka imaatay in uu igu ilhaamiyo mar walba ilaahay ilaalintiisa ayayna ka imaatay ilaahay jacayl uu jecel yahay alxamdulillahi rabbil caalamiin ayaan u nisbaynayaa ilaahay aan ka rajeynayaa alxamdulillahi rabbil caalamiin waayo I don't think inuu jiro bini aadan iga caasisan bini aadan iga gaabin badan bini aadan iga gaf badan inuu jiro hadduu of course uu jiraa oo laga yaabo allahu aclam laakiinse uu yar yahay saasay tahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu helaa mar walba ama wuxuu isiiyaa mar walba in aan asaga u tasbiixsado asaga baqrintiisa ay ugu badan tahay asaga u carabkiisa ay ugu badan tahay
ولله الحمد إن آن hadduu ilaahay kuu roon yahay haddii xataa ay dhacdo ya oo aan sidaan jeclahay aan u cibaadaysanin ilaahay subxaana wa tacaala rajadiisa marna ma dhigi baqdintiisana marna ma dhigi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka waxaa dhici jirta mar walbaba inaan xusuusto ilaahay wax walba oo igu dhacayo inaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiinna badiyo haddaan wax ilaahay nimcadiisa isiiyo إلهي سبحانه وتعالى استغفر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أفكي مرة وكقوين هي إلهي آيات تاسكيني إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسا لكن أو اسكت أو كلا دودوان هذا نساسي تهي يا هذا نساسي تهي امتحان أدونك أيوة كلا دودوان أيوة حنون له أيوة حوغا دقاليسك خيريسان له أيوة أو محن كلا ذاي قفل قبر والبردان يرى أما با hami baa ku jirto waxaan ku jirta inay mustaqbalkeeda meel ka soo baxdo inay waxbarashadeeda meel iska saarto inay adduunyada meel gaarto ay ku jirto oo ah ayaa waxaad moodaa in ay ku jirtay xoogaa hakad ya marka loo fiiriyo aniga dhinacay kulli aniga saasan dareemay inay hakad iga jirtaan dareemay laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay fiirinayaan oo dhahayaan oh my god maasha allah isku gudbanaysan tahay gabadhaas ya look waa laga yaabaa wayna dhacday ya dad badanaa dhahayo maasha allah you're doing good laakiinse dee subxaan allah ya waana qodob muhiim ah oon raba inaan kusoo noqdo insha allah tacaala qanaacadda iyo qofka in uu allahuma salli wasallam wuxuu haysto uu ku qanacsan yahay ku faraxsan yahay ya iyo in uu hadduu ilaahay ku roon yahay waxa uu haysto uu xusuusto si rurun ah ya markaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin waan dhahayaa that doesn't hadda ayaan ogaaday ya gaar baan ka ogaan doonaa in aysan maybe rurun si aqoonsi rurun ah inaysan si xaqiiqa ah inaysan gudaha usii jirin ma ogeyn ani maba dareensanayn waayo haddaan ogahay gudaha waan sii gaarsiin lahaa because on purpose ma aanan u sameynayn laakiin subxana tacaala laakiin waxaan moodaa inay tahay khaflad lagu jiro khafladna waxaa waaye maahsanaan iyo ogaansho la-aan aan ku jira ayaa ugu wacnayd so in aan qof waxaa kasoo qaadaa markaa gaari saaranta lasaya tusaalahanito just haddaan arma heer kasoo jiiday gaari markaa saarantahay ku socdo 100 ya kilometer per hour ama 120 whatever xoog u socdo ya ma haleelaysid inaad register garaysid hareerahaaga waxa xuf ku maraayo ma haleelaysid inaad record garaysid ma haleelaysid saasi la mid ah ayay waxay ahayd waxaad mooday in aan baabuur saaranahay ya in my life inaan baabuur saaranahay oo aan xowli ku socdo aanan register garaynaynin all the good stuff jidkaas toosan oo dheer oo horteedaan u socdaa ya aan waxbaan beegsanayaa wuxuu yahay allahu aclam baa u ordaya ya ma u jeedi marka all of the good things oo ii dhacaayo marmar oo ii dhacdaa inaa markaan alxamdulilah maalinteeda iisoo qurux badnaato maasha allah waxbaba ii fiicnaadaan aan sariirteeda tago alxamdulilah ama aan 1-2 things aan arko alxamdulilah aan dhaho ama calashaan waxaa ahaayoo kale let's say 7 bisha 30 maalmood ama bishii yeah I know hadalkayga halkaas laakiin haddaad dulqaadatid kulli way isku kaasoo xirmanaya waana fahmi doonta waxaan ka hadlayo bisha soo ma aha 30 maalmood 30 maalmood 20 maalmood oo ka mid ah waxaa laga yaabaa baabuurkaas xoog ah aad saarantahay 10 maalmood oo ka mid ahna inuu ilaahay ya kusoo celiyo inuu ilaahay kusoo celiyo maxaan kala fariinka kuu qabto fariinka ina qabatid inaad xoogaa slow down samaysid 10 maalmood ka mid ah slow down kaasna maaha slow down waxaa laga yaabaa maybe 2 maalmood ka mid ah slow down kaas inuu noqdo slow down oo gaabin ah inaad si aad adigu go'aansatay adigu hadduu ilaahay kuu roon yahay ilaahay dhinaciisa of course gabaatay aad si niyad ah intaa isula fadhiisatay aad tiri okay waan hadduu ilaahay kuu roon yahay
وإن حوجا عجلة دي بقول عليها يوم بل استرتيبيا أو فيريا وحن قلبي وحن صحي وحلي ربي وحن halkee wax iska qaban lahayn salaadeeda masaxan tahay soonkeyga masaxan yaa dambi ka galay yaa xaq igu leh yaa inaa fiirisid oo maxaan ku rahdaa nimcada ilaahay ku shukridid oo maalintaadii aad dib u xisaabisid oo maalmahaaga aad dib u xisaabisid bishaada dib u xisaabisid aad sadaqadee ma la baxay maxaa adduunyadan u joogaa laga yaaba inaad si purposeful ah u raasatid inaad raadisa casharo ku saabsan akhra ku xusuusinayo casharo qur-aanka tafsiirkiisa aad laga yaabo laakiin waa bishii 2 maalmood ya taasaan aan ku farxi jiray marka taasaan ku farxi jiray 7 maalmood soo hartayna aan tan waayta aan haddaba ka indha tirnaa laa xawla walaa quwwata illa billah 7 maalmood oo kalena waa xanuun waa jahwareer waa yaab oo ah what's going on xagee iska qabanayeen maxaa dhacay waa xanuun markaan leeyahay ama ah inaan gudahan ka dhaqmanayo waxaas maaha laakiin waxaan ka wadaa xanuun caafimaad dhinaca caafimaadka ah oo oo cajiib ah ya qof physically dhakhtarka wuxuu ku dhahayaa ha okay yes soo jeedna xanuun baa ku haya laakiin wax alle iyo meeshuu ka imaanaya ma naqaano wax alle waxaan ku samaynana ma naqaano so ho xanuun baabiyahan cun ho maxaan ku dhahdaa dajiyahan qaado ho nothing ma ku caawinayo wixii uu ka sii daraya laga yaabo maalin iyo laba inaad tiraa okay waa laga yaabo wallahi xanuun ma shaqeynaya ma shaqeynaya haddana so saas bay ahayd muddo dhan الله المستعان at the same time may because alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxyaabaha ilaahay ugu xamdiyo waxay ka mid tahay oo ilaahay mar walba ugu shukriyo waxay ka mid tahay harjadka iyo adduunyada maasha allah waxay kugu soo tuurayso iyo caafimaad daradaas iyo mas-uuliyadaha iyo orodka iyo haddana aada u joojinayn alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad ordaysid aad raadinaysid ilaahay subxaana watacaala laga hela aad raadinaysid aad baaraysid aadan ka xishoonaynin inaad caawimaad dadka aad weydiisatad calashaan professionals aad maxay ahayday aad adduunyada dee ka qayb qaadanaysid aad caruur korinaysid aad qudwad dad u tahay aad halkaas intaad soo fariisid isku dayaysid inaad dad kala caawisid aad alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aad ku dhex jirtid mujtamaca dadka ugu qurquruxda badan oo ugu fiican oo ugu firfircoon oo ugu calashaan aad ka mid tahay laakiinse ma ujeedid at the same time ma ujeedid baabuurka xulka ahaa saaranta just waxa waaye laba maalmood keliya waa markaasha xuligaa saaranta galo walaashay ah hadda kor waxay tiri waxaan ku mashquulsanahay so much waa tusaale waxaa waaye waxaad moodaa inay ani calashaan wixii aan waaba isla dhehina umalaynaya waxaan ku mashquulsanahay so much so waxa aan hayo oo dee calashaan hawsha aan hayo adduunka iyo aakhiradeedana u shaqaysan waxaan sameynaya waxbaa jira ka wada muhiimsan oo aan focuskayga qaadanaya wuxuu yahayna maba farta ma lagu fiiqi karin waa shaydaan waxaas shaydaan waaye ma ogi shaydaanka wuxuu rabaa inuu kugu dhaho waxaan boobsii kana boobsii si fiican ha u qabanin focuska aniga igu haya shaydaankaasna waxaa waaye hadda fahansanaya waxaa waaye in uu kaa mashquuliyo waxa muhiimka ah oo ah ilaahi subxaana watacaala inay u caabudid sida adigoo arkaayo oo ilaahi subxaana watacaalana aad hadda beri waa lasoo dhaafay maxaan kada shalay waa lasoo dhaafay berin inaa gaaraysid ma ogid maanta unbaa lagaa rabaa inaa ilaahi subxana watacaala aad soma maanta ayaa lagaa rabaa inaa aad saacadaas la joogo ayaa lagaa rabaa inaad siday tahay kaa caabudid adduunyadana aad ugu shaqaysatid sidaa labadii midna haddaada qabanayn marka oo aad xawla ku hormaraysid then waxaa dhacaysa in aad
uu kaa lumo aad register garin weyd waxaa dhaafaysaada exitkaagaa dhaafaysa marka المهم so waxaa dhacday kulli haddaan soo wada gaabiyo ya mar waxaan isiri waxaa waaye أنا waxaan ku noolaa Yurub reerkaygana adduunyada way ku kala noolaadaan meel kala duwan sida Soomaalida inteeda badan oo kale laakiin dadka reerkayga igu dhow qaarna way ku nool yihiin sidoo kale qaarka ugu badan waxay ku nool yihiin Mareykanka ay hooyada ka mid tahay hooyo Mareykanka iyo wadankii u dhaxaysa so inta badan laakiinse Mareykankay degan tahay so waxaa isiri ma ii suurtagelin marka maalintii anigoo gabadh dhalinyaro ah oo 18 jir ah laga guursaday gurigeena ilaa 2023 22 years later ya ma halkaas kale ogaateen ayaa igu xigta hooyada inaan arko qadar allah maa shaa facal marka ilaahay ma ii suurtagelin sabab ilaahay ogaya darteed marka waxaan isdhihi jiray ama u wacan tahay caasi ama tahay ya haddii sidee adduunyada hooyada u saaran tahay u nooshahay adigana aad u nooshahay aad u arkin all those years halkaas bay sheekada iska qaban lahayd horta hooyada soo arag soo dhunko soo isku soo duub iyo kasoo ducayso soo ururso iyo halkaas ka baakaysan tahay isdahay so I went one aaday alxamdulilah rabbil caalamiin it was so good maasha allah waan soo noqday sheekada way sii jawaabtay 2024 ya 2024 bishii afaraad waa maalin taariikh ah bishii afaraad I think 29 miya mise 30 bisha waa malaynayo ayay ahayd ya horta laba jeer 2022 marba xanuunada idinsoo xanuunada ii sheegayo physical ah welibana ayaa waxaa dhacday halkan hadeertaan waxaan joogaa oo fadhiya halkan waan tukaday markaan tukaday ashe inay ahayd baan malaynay ahaa waan ka kici kari waayay sijaayadii subxaan allah sijaayadii waan ka kici kari waayay because of ma aqaan like adigoo ma aragta hawaay tusaale ahaan adigoo markaa hurdid aad intaa riyootid aad ku riyootid inaa wax lagaa rabo inaad ka ordid haddana aad ordi karin oo jidka dhan uu barnaad ku yahay muxuu dhacday saasoo kale u dhacday laakiin anoo soo jeedo waxaa dhacday inaan kici kari waayay aan sijaayada ka kici kari waayay aniga iyo labadeed mooyar kaliya guriga jooga marka sijaayada ka kici kari waayay waxaa dhacday waan baqay waxaan isiri this is it marka waan ashahaatay ma baqin calashaan oo dee waxaan ka wadaa I thought this is it ilaah subxaana watacaala khaataba khayr igu subiyaanaa ka bari waan ashahaatay waan iska sii joogay waan tartiib baa markii dambe u kici doonaa anoo yaa allah u kacay sariirteedaan aaday buug baan soo qaaday dardaaran baan ku qacay believe it or not so that was 3 years ago weli waan soo noolay alxamdulilah rabbil caalamiin marka waxaan wali inaan baxayo cod baan u duubay familigayga dadkayga cod baan u duubay waxaan ku dhahay ma ku dhihin waan dhimanaya waxaas waxaan ku dhahay hala is cafiyo iyo you know inaan xoogayaa dardaaran ah so that was labada laakiinse waa waqtiga weli aan qaaflada ku jiray I didn't know what was going on waa iska bas markaan go-aansanay inaan hooyo u tago sanadka ku xiga waan aadi doonaa insha allah tacaala inaan hooyo u tago ilaa waxaan dhihi jiray okay hooyo haddii halkan joogto halka saacada dhir adiga waxaan isleeyahay hooyo waa inaad u tagtid kasoo ducaysatid you know I found out horta wax
of course waan kusoo farxay hooyada waan jeclahay aad iyo aad laakiinse hadday ku suurtageli karto every year ama every time hooyada inaad isla joogto is aragteen alxamdulilah rabbil caalamiin sameeya laakiin haddaysan ku suurtageli karin oo duruuf ay ugu wacan tahay then there's so many other ways oo ilaahi subxaana watacaala lagu raaligeliyo waalidka oo looga ajarka lagu faray iyo maxaan ku radaa baarnimada lagu faray aad u samayn karto way jirtaa gadaalba taas anay isku fahansiin doonaa ama de ya marka 2020 fast forward kaas waxay galaan ku raacay laakiin fast forward 2022 waxay ahayd waqti cajiiba waxaan u maleeyay waxaan ku dhahay maqaan waxaa isla kulmay xanuun I thought I was horta waxaan u maleeyay inaan waanan rabo isku maleeyay inaan waanan rabo baa isku maleeyay hadaa I don't know how qofku markuu waaranayo siduu noqday ma aqaani laakiin I thought maalintaas inaan waaranayo u maleeyay 2024 bisha afaraad 30keedii ahayd iyo on top of that waalidaas miyaan ka baqwaya ma aqaani I had a panic attack hadda kor ugu dhacay anxiety waana soo dhilgalayay so many years all of that laakiinse kan wax kale bay ahayd wax aan sharixi kara ma ahayn ilmahayga way la socdaan gabadheeda yar markaas adeertaan 12 sano jirto waxay jirtaa 10 sano markaas noqotay miskiinta I remember waxaan diyaarinaynaa inaan baxnaan laga rabaa allah mustacaan laakiin aniga waxaa noqday wax wuxuu sameynaya garana sii soco soo soco maxay ahaydey maanta dhan ilow waxyaabihii laga rabay maanta dhan haddana at the same time waan baqayo gariya ma aqaan wadnaha ay gariyaya aad iyo aad wadnaha xoog ii gariyaayo ma baxaa ma joogaa ma go-aansan kariyaa dan caruurtu way sugayaan waxaan ku dhahay ma aqaani marba inaan dareensiiyo inaan xanuunsanahayo wax iga qaldan yihiin marba inaan dareensiiyo at the same time waxaan saasitaa marka waxaan go-aansaday inaan iska baxo waxbaan boqol jeer waxaan u baahnaa in gurigaan kala baxnaa ilaa waan soo noqon like mar walba way dhacay laakiin this is extreme to the max waxaa way 10 jibaar boqol jibaar ilooshaa dhinaceeda on that day so waan baxnay and then baabuurkii baan soo qaaday ciyaalka guriga uga sitay baabuurkaan soo qaaday kabacdina baabuurka soo qaaday kabacdina waxaa dhacday alaabta aan u baahnayn maya markaan baabuurka soo qaaday waxaan wacay guriga aan imaaday waxaan wacay gabar aan imaadeernahay oo magaalo kale oo magaalada wax yar ka baxsan jirto oo waxaan ku dhahay waan xanuunsanahay caruurta makuu keeni karaa dhakhtarkaan raba marka inaan aado waxaan isiri caruurta iyadoo gee dhakhtarka aad because this is wax caadi ah ma aha malaya horta whatever is going on they let them find out iyo inay sidaan maba kusii hiisan karta caruur by the way same day maalintaas gelinkii hore I remember gabar kale markazan aan wacay oo ingiriiska joogto waan oynayay non-stop waxay qaldan ma garanaya ma aqaan waxay qaldan ma aqaan baan ku dhahay maalintaas isla maalintaas waa gelinkeeda hore 2024 la joogaa hadda waxaan idin sheegaya waxaa umalaysiin inay qof walba soo mari karaa aniga ilaa iyo 2011 ilaa ay hadeertaan depression iyo anxiety iyo maxay ahayd xanuunkan aan idin sheegayo le dhakhaatiirta u waayeen xal oo ah fibromyalgia la dhihi doonaa later on
I know waan la soo dhiiri karay waan aqaana waxaasoo dhan ma yeah it's different oohin waan soo ooyey waan soo you know this morning waan soo noqday all of those things ma ka sheekeynaya waxaasoo dhan ma yeah waxaan ka sheekeynaya literal fear for your mental well-being iyo your life like to drop dead on the spot noqotay so adagu marka allahuma salli wa barik ala sayyidina maxamed waxaan go-aansaday waxaa halka iga hoos iga xariiqsanayd haddii ay iga qaban weydo gabadhaas caruurta kaxee waxaa u geysaa kuwaas social serviceskii baano kabacdina dhakhtarka aad taas baa iga go-onaysa runtii saas how bad ay situationkayga adina maxaan uga fikri waayay in aan dhakhtarkaan caruurteeda wata aado kabacdina ay dee because waxaan dhahay maybe waa lagu dhigayaa dhakhtarka kolleyba waxay geynayaan meel yeah anyway allahu mustacaan so fast forward marka 2000 iyo so maalintaas marka gabadhi way ii cudur daaratay waxay igu tiri anaa xanuunsan so ma idin qaabil karo marka hore kaalinteeda haddana igu tiraahday ma samayn karno okay waan iska dhahay and then gaarigaas ka qaadanay ikea iska aad maanta soo xasuusta waxaan soo gadanay go-yaal iyo random stuff maba aqaan waxaan soo gadanay waxaas runtii waxaan ku fikir bil ma aqaan I don't remember now so marka waxaa dhacday sidii aan videoyaal iskaga soo duuduubaya ha googosnaadaan ha waxaysnaadaan ha kala you know consistencygooda ha yaraadaan sidii baan noloshada iskaga wataa sidii imtixaan baan xataa waxaan lahaa bishii 6 imtixaankaygan galay ama bishii 5 mise bishii 6 I think inay imtixaankaygan galay exercise amaanta xataa isla maalinta exercise-kaygan iska sameynayay fasaxa aadnay waan soo noqonay 2000 iyo bishii 7 haddaba this marka sheekada dhan halkan ay socotaa 2024 bishii 7 ayaa ana alxamdulilah walaalahay waxaa waay mar walba marka isla hadalno yes laga hadlo dhibaatooyinka adduunka waxyaabaha la dabacsan yahay waxyaabaha la sameeyey oo labada laakiin boqolkiiba 99 ma dhacdo telefoon inta la wada hadalnay ana ilaa isku xusuusin alxamdulilah rabbil caalamiin so gabar walaasha ah isla hadlaynay and then waxay ii recommend garaysay gabar la yiraahdo Aamina Shiiquna ayada daawanaysay Aamina Shiiquna ayada daawatay waxay u tir aad baan uga helay horta prior to that walaalkay wuxuu ii soo diray gabar la yiraahdo allahu mustacaan Abla Lashin I think inaan oo masriyad ah oo ka hadlaysa fadliga salaada calayhi salaatu wasalaam salaada nabiga sallallahu calayhi salaatu wasalaam iyo si ugu caafimaadday iyo si uga baxday qafladda ya iyo si uga baxday qafladda iyo si ilaahay uga saaray xanuuno badan oo you know similar to me ayadoo xanuunsan oo I think in a bipolar ku dhacsana depression so many years mana sanada badan inay tiri bipolar iyo depression iyo waxyaabo badan iyo mental health keeda ku saabsan inuu ku dhacsana at the same time na ay nolosheeda wadatay jaamacadeeda ka baxday shaqaysanaysay oo the you know gabar aan la gursanin taa umaleynaya guriga hooyadeeda abeed joogtay for yeah laakiin hadda taa qof weyn laakiin I don't know in hadda gursatin kara la alam not that the nolosha waxeeda muhiimadeeda inay tahay laakiinse waxaan ka wadaa uun nolosheeday wadatay so and then gabadhii baan maasha allah aad baan ugu ta'afuray because waxay ka sheekeynaysay sidii ay ugu maleynaysay nolosha dhanba
ها si ugu maleynaysay dee adduunyadana waa adduunyo aakhirana aakhiro shaqaynaysa isku lahayn oo ay dee camalkeeda samaysanayso waxay samaynayso oo ay aakhiro u samaynayso it's nothing to do with adduunyadan ya anigana ictiqaadkaas in badan uu igu jiray of course aan aaminsanahay in ilaah subxaana watacaala uu ku siinayo abaalmarinteeda inaad helayso waa u helay hadduu gaaraa leeyahay nolol fiican ood ku noolaanaysaa deep down oon u helay laakiinse main ideaha lagu soo koriyay ayaa waxay ahayd salaada aad tukanaysaa because ilaah subxaana watacaala ku faradii kale naar baa galaysaa waxaa u soomaysaa because saas waaye xasanaadka u shaqaysanaysaa aakhira janno ku rabtaa you know all of the things that you do adduunka aad ku samaynaysid aakhira u samaysaa taas iskaga mid ahayn subxaanallah laba waxaan iskaga mid ahayn oo dee mine aniga aan relatable ee ila noqotay 100% waxaa waaye all of the things aan isleeyahay waad ku faa'iidaysaa nolosha adduunka waxaan ka raadin jiray fikrado galbeedeed ya videogaas hadda video waan kaga hadlay hadda kahor arrintan oo ahayd waa markii aan bilaabay haddaba inuu youtube-ka waxaan soo gelgelin jiray aad iyo aad uu iskugu dhex qasmay because fikirkii iyo jidkii iyo systemkii iyo wixii aan ku socday oo dhan ayaa waxaa bilaabatay inay khalkhal gasho oo dee khalkhal fiican baana galay walilaahi alxamdu insha allah tacaala waxaan bugaag ayaan soo lakhaysiin jiray amaba aan soo idiin soo gudbin jiray aan kaga hadli qaar marar badan aan kaga hadli jiray مثلا tusaale ahaan time management self development maxaan ku rahaa waxyaabahaas oo kale and then kulligood waxaa waaye waa wax bugaag ay qoreen reer galbeed waa bugaag ay qoreen khubaro ku salaysan yahay kow rabitaankooda adduunyada ya waxyaabaha hadafkooda uu adduunyada yahay boqolkiiba intay doonto qaar badan laga yaaba inay gaal christian yihiin haddana laakiinse dee marka sourcekii ugu fiicnaa aad haysatid baa marka su-aalaha isweydiiyey way isku wada hagaagtay ya amina sheekuna videogeeda markaan arki doono oo dee iyadana video waan usoo noqon doona waxaa wala jeeda amina sheekuna iyo abla laashiin markuu isoo diri doono ashkur walaalkay iyo markii aan maxamed faris wiil la dhaho book uu leeyahay oo la dhaho I think the productive muslim inay ahayd waa umalaynaya markaa isdhahaya aad ka qortid kind of review or aad soo lakhisid saddexdoodaas waa hal sano ka hor ayaa hal mar wada kulmeen oo mar walba horta markaan wax buug baaritaan ku sameysano ama video research intaan soo sameeya soo geli waxaan isdhihi jiray markaan research sameeyo oo all my the sources ay yihiin inta badan baan ka wadaay galbeed ideologies has dhihi jiray shaaqeeya baan horta sug raadi oo maxaan ku raadahay sources waxa adiga aaminsan tahay and then si fiican ma u heli jirin because only way aan u bartay waxa loo research xasaasay marka waxaan kor dhacay buugaas wiilkaas uu leeyahay oo aan productive muslim and then taas ayaa de su'aalo badan maskaxdayda ku furtay iyo haddaba